goobta waxaa isugu yimid ay bisha 2 July tahay shirkeeni caadiga ah ee usbuucla ah oo isniin walba dhici jiray siyaasadda arrimaha loo dhan yahay shirkan wuxuu ku saabsanaa dabagalkii shirkii amniga qaranka lagu qabtay Baydhabo bishii hadda la soo dhaafay oo hogaaminaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah iyo maamul goboleedyada arrimo muhiim ah ka soo baxay marka shirkanagan wuxuu ahaa inaan dabagal ku sameeyno arrimahaas ka soo baxay wasaaradihii arrimahaas u qusay inay ka shaqeeyaan waxa kale oo muhiim ah in doona shir mardhow ka dhici doona magaalada Xamar bisha 4 iyo 5 ay isugu imaan doonaan xafiiska ra'iisul wasaaraha guddiga wadaxaajoodka xuduudaha wasaaradda dastuurka iyo wasaaradda arrimaha gudaha oo ka xaajoon doona sidee loo dardargeliyaa arrimahaas waxa kale oo meesha la isku soo qaaday safarka dhawaan imaan doona ay madaxweynaha hogaamin doono Somali Partnership Forum yiraahdo oo lagu qaban doono magaalada Brussels